إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ونشهد أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، waxaan u mahad celinayna Allah subxaanaه watacaala allihii subxaanaه watacaala nagu nicmadeeyey inaan ka mid nahay ahlu lislaam waliimaan. allah subxana watacaala waxaan ugu mahad celinaynaa allihii na gaarsiiyey soonka, haddana gabagabadiisii aan joogno. ilaahay waxaan weydiisanayna subxana watacaala kuwa nabad ku ciida, soonka dambena nabad ku sooma, ilaahay inuu naga dhigo jala fii culaah. kadib waxaan u mahad celinaynaa shirkadda haas oo soo qaban qaabisay afurkan daarusalaam. waan u mahad celinaya ilahi subxana watacaala ha barakeeyo. sal allah yubaarik fi ahlihim wamaalihim, jazaahum allahu khayra. ayuha alaxiba, ramadaan waa gabogabo, 3 casha mar 4 casha ka dhiman. ramadaan waa bil barakaysan sida la ogyahay. nebiga sala allahu alayhi wasalam, caaisha waxay dhahday 10ka ugu dambeysa nebiga markii la gaaro wuu nooleyn jiray sala allahu alay wasalam, cibaada ayuu ku mashquuli jiray, wuuna xeedan jiray, wuxuu u xeedan jiray cibaadada allah subxaanahu wa tacaala. caaisha waxay leedahay nebiga saki ayuu ahaa, saki waxaa la deeqsi ayuu ahaa. ramadaan deeqsigiisa aad ayuu u badnaa, 10ka ugu dambeysana aad ayuu u deeqsi badnaa sala allahu alayhi wasalam. 10ka ugu dambeysa ayuha alaxiba waxaa ku sugan leylat alqadr. waa habeenkii sharaf leh, qadr waa sharaf, iyo waa habeenkii barakeysneyd. ina anzalnaahu fi leylati mubaaraka, waatuu ilaahay dhahay subxaanahu wa tacaala. ramadaan ayuha alaxiba dhammaantiisa, bilaawgiisa ila dhammaadkiisa waa naxariis, bilaawgiisa ila dhammaadkiisa waa dembi dhaaf, bilaawgiisa ila dhammaadkiisa waa nafaf badan ayaa laga xureynaya naarta walciyaadu billah. laakiin axaadiis dadka qaar ay iska caadaysteen ama badan ama aan maqalno. 10ka ugu horeyso waa raxmad, kan dhexdana waa maqfiro, dembi dhaaf, tan ugu dambeysana waa dad ayaa naarta laga xoreynaya. xadiidkaas culamada waxay sheegeen, culamaa ulxadiid la yaqaano ku takhasusay cilmu lxadiidka iyo cilmu naqd la dhaho. xadiidkaas waxay dhahan waa xadiid aan sugnayn, nebi kama sugna sal alay slam. in la dhaho cali ibn zayd ibn judcaan ayaa ku sugan, ninkaasna waxaa lagu tuhmay inuu beenlow yahay. idan xadiiskaas maba sugno. waxaa cad inuuba sugneen, axaadiis saxiix ayuu ka hor imaanaya. xadiiska nebiga sal slam uu dhahay ramadaan hadduu yimaado albaabada jannada waa la furayaa, albaabada naarta waa la xerayaa, shaydaamada waaweynkana waa la xerayaa. shaydaamada almarada waaweynka, kablaadarayaasha waaweynka, shaydaamada kuwii yiriska waa iska joogaan, waa iska wareegayaan, lakin kuwa la xerayo waa kuwii waaweynka ayaa la xerayaa. lidalik nebiga xadiis dheerah wuxuu ku sheegay, wuxuu dhahay waina lilahi fi kuli leyla cutaqaa, waina lilahi cutaqaau min annaar, wadalika fi kuli leyla. ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay dad ayuu naarta ka xuranaya ramadaan gudihiisa, taasina waa habeen kasto. xadiiskana wuxuu leeyahay 10ka ugu dambeysa dad loo xoreynaya. idan xadiiskaas xadiis sugan ma ahan. ramadaan naxariis waaye bilaaw ila dhammaad saan sheegay. ilahina wuxuu dhahay subxaana wa tacaala ina raxmatii wasicat kula shay, naxariisteyda waxay deeqdaa ama waxay ku fidsan tahay wax kasto.
naxariista ilaahayna waqti go-an ma laha xadiiska nabiga la yaqaano nabig alay slam wuxuu dhahay qofkii sooma ramadaan iimaanan waxtisaaban isagoo aaminsan gudanaya micnaha rukn min arkaan aliimaan alislaam isagoo gudanayo tiir ka mid ah tiirisha islaamka ajirkana ilaahay xaggiisa ka filanayo waxtisaaban gufira lahu ma taqadam min dembih dembigiisa wixii horay waa loo dhaafaya maxay noqonaysaa ramadaan bilawgiisa ilaa aakhirkiisa xadiiska nabig alay slam xadiiskan wuxuu ku dhahay qofkii ramadaan istaagay qiyaamu leyl gufira lahu ma taqadam min dembih dembigiisa intii horeysa dhan waa loo dhaafaya waa la cafinaya micnaha waxay tahay ramadaan bilaw ilaa aakhir idan xadiidkaas ramadaan tobanka raxma tobanka dhexde maqfira tobanka ugu dambeyso xadiis sugan ma ahan ibn cumar waxaa waajib nagu ah ayuha alaxiba ayaamahan zakaat alfitri ayaa waajib nagu ah waa waajib zakaat alfitr zakaat alfitri culamada waxay dhahaan waxay leedahay laba xikmo sida xadiiska ibn cabaas uu sheegaya kow xikmada koowaad soonkaada gafafka kaa dhacay inay kaa safayso bini aadam waay anaga macsuum ma nihin falidalika qofku sanbari karaa soo sooman ayuu qalad ku dhici karaa qaladkaas yar uu ku dhacay oo soonka dhaawacay waxaa tirtirayaa zakaat alfitr xadiis ibn cabaas ayuu ku sheegay wuxuu dhahay soonka zakaat alfitr waxaa way tuhratan lisaa'im qofka sooman soonkiisa ayay hufaysaa iyo tucma lilmasaakiin waa raashin ama quudin la quudinayo masaakiinta maalinta ciidda labadaas xikmo waay soonkaada qaldaadka ku jira ayay kaa saxaysaa masaakiintan maalinta ciidda ayagana waa inay farxaan wax cunaan inay maalintaas dawarsanin ibn cumar wuxuu leeyahay waxaa nagu fardi yeelay zakaat alfitr nabiga sal lla alay slam furida calayna zakaat alfitr zakaat alfitr waa fard waajib ah dabcan qofkii awoodo waan ka hadli doonaa insha allah waxaan bixin jira u leeyahay saacan min tamr saac waa suus afar shood halkii shood afar waa suus waa afar shood micnaha afar sacabada ay buuxaan afar mar ayaa la dhahaa waa 2 kiilo iyo bar taqriiban ayaan bixin jirnay u leeyahay timir iyo moordi iyo waxaan bixin jirnay u leeyahay iyo bur ayaan bixin jirnay waxaa bixinaya ayuu leeyahay ibn cumar qofka yar qofka weyn dumarka ragga qofka adoonka iyo qofka xorka ah intaas dhan waa laga bixinaya oo muslimiinta ka mid ah idan zakaat alfitr markaa bixinaysa adaa iska bixinaysaa xaaskaada iyo caruurtada xataa cunuga yar munjuluq ah waa laga bixinaya cunuga calash ku jiro lagama bixin karaa cuthmaan bin cafaan ayaa bixin jiray radi allahu canhu maamada hadday 4 bilood xagga u dhaafto ya cunuga waa cunug ruuxna naf lagu afuufay waa ibni aadam lakiin ma soo bixin lakin culamadu waxay leeyihin cuthmaan bin cafaan wuxuu ahaa ijtihaadkiisa arrinkaas ijtihaad ayay ka ahayd radia allahu canhu lakin nabigu wuxuu dhahay cunuga yar waa cunuga adduunka jooga maan cunuga caloosh hooyso ku sugan idan cunuga yar qofka dumarka iyo ragga iyo ninka weyn iyo ninka yar qofka xataa aan soomin oo waayeelka waa laga bixinaya cunuga yar ma soom waa laga bixinaya 2 kiilo iyo bar ayaa la bixinaya abu saciid raawi xadiid wuxuu dhahay wa kana طacaamuna الshaciir wالtamr waagaas raashinkaani wuxuu ahaa shaciir iyo tamr burka sareynta ah iyo timir ayaa raashin noo ahaa culamada meesha waxay ka qaataan waxay dhaheen ibn qayim wuxuu dhahay maanta waxaa la bixinayaa dadka waxa raashin maanta timir raashin ma ahna ayuu laxiba timir maanta waagi hor raashin ahayd dadka raashin ayaa u ahayd caaisha waxay leedahay radiallahu canha waxaa 2 bil 3 bil guriga nebiga dabkiisa dabkaani waa dansanaan jiray raashin ma karsan jiray maxaa ku noolaan jirnay biyo madow iyo timir madow manaa timir waxay u ahayd raashin maanta xaalkii waa isbedelay timir raashin ma ahan timir waxaa loo isticmaalaa maanta waxaa loo cunaa sida loo cuno alfawaakih yani khudaar oo kale ayaa loo cunaa sida looska loo cuno sida tufaaxa loo cuno ayaa loo cunaa ma ahan raashin rasmi ah ma ahan ibn qayim wuxuu leeyahay waxa dadka raashin u ah ay u yaqaanaan oo dadka dhexdhexaadka ah ayaa la bixinaya maanta annaga meesha aan joogno tanzania beriis ayaa dadka raashinkooda caadi ah beriis waa la bixin karaa inkastoo xadiis ku imin lakin beriiska waa la bixin karaa ilaana markuu ka hadlayay kafaarada qofka markuu dhaarto wuxuu dhahay min awsati ma tuطcimuuna ahlikum raashinka idinka cuntaan bixiya idan waxaa la bixinayaa beriis baasto ma lama bixinayo baasto waa bur waa la bixinaa lakin fuqahada waxay isku raaceen
raashinka la gacmeeyey zakaat alfitr lagama bixinayo. baasta waa la gacmeeyey, waa bur laakiin oo la sameeyey burka caadiga haa, masagada haa, qamadii haa, galley haa, dadka cuna waa la bixin karaa. laakiin baradho ma bixinaysid, baradho raashin rasmi maahan, inkastoo in chibsi ay tahay, lakin raashin dadka lagu cazimo maahan. haddaad dad cazumayso akhyaare chibs ma u keenaysaa mise bariis iyo waxaa u keenaysaa iyo soor iyo bur iyo wax wixii lamid ah ayaa u keenaysaa. idan baastadan waa burkaa la bixinaya, ayada fuqahada qaar way diideen. idan zakaat alfitr ayuha alaxiba waa waajib, qof kastoo muslim waa laga rabaa inuu bixiyo. soonkaada ayay connection la leedahay. xadiis waxaa jira ilayhi nabiga wuxuu dhahy sal slam, qofka zakaat alfitr hadduu bixin soonkiisa wuxuu ahanaya mucallaq, cirkii dhulka ay udhexeynaya, istara loo maqaada ilaa zakaat alfitr la bixiyo. wuxuu noqonaya wax lalmasan, micnaha kor ma aadayo, lama aqbalayo. xadiidkaas xadiis jira maahan, waa daciif. alimaam suyuuti wuxuu lehy waa xadiis nabiga kama sugna sala alla alay slam, nin been loo ayaa xadiidkaas alifay, nabiga ma dhihin sala alla alay slam. zakaat alfitr waa waajib in la bixiyo ayuha alaxiba, saan hore u sheegnay. qof kastana waa inuu aabbaha wuxuu ka bixinayaa nafsadiisa iyo caruurtiisa intaan qaangaarin. culamada qaar saasay qabaan, nin kastoo qaangaaray asaa iska bixinaya caruurtaada. haddii adiga u bixinaysid ka bixinaysid dhib ma leh, waa ixsaan, laakin waajib kuuma ahan. xaaskaada nafteeda culama ayaa qabtaa, adiga inaad ka bixisid waajib kuwama ahan, ayadaha iska bixiso. haddii adiga aad ka bixinaysid waa ixsaan. mala fahmaya? waa taas. maxaa dhacay? waxay leeyihin zakaat alfitr waxay connection leedahay soonkeeda. ma adaa ka soomaysa marki hore? xaaskaada adi maa ka soomaysa mise idaa kaa soomaysa? nin kasta cibaadada wuxuu gudanayay shaksigiisa ayaa laga rabay soo maahan. idan waxay leeyihin zakaat alfitrne ayadaa laga rabaa. hadday haysanin qofka u haysanin way ka dhacaysa, laakiin ina adig ka bixisid waajib kuuma ahan, waa ixsaan iyo wanaag keliya. ayadaa la rabaa inaad iska bixiso. zakaat alfitrne waxaa waajib ah qofka markuu hadduu haysto habeenkii ciidda raashin ku filan iyo maalintii ciidda hadduu haysto, wixii soo haro zakaat alfitr ayaa laga rabaa. mathalan habeenkii waxaa kugu filan qamadii inaa cuntid 2 kiilo casho ka dhigatid. duhurkiina qadadii qoraacdan waxaa kugu filan 2 kiilo beriis, intaa kugu filan. wixii soo haro zakaat alfitr waa laga rabaa. haddii intaas keliya haysid, wax zaa'ide cuntid habeenkii ciidda iyo maalintii ciidda haysanin, zakaat alfitr lagama rabo, way kaa dhacaysaa. haddii dad wax ku siiyaan zakaat alfitr ku siiyaan, ma ka bixin kartaa? haa, waa ka bixin kartaa, maadaama aad adiga hantisay, milkisay, waad ka bixinaysaa. waa shardi haddii habeenkii ciidda raashinka cunaysid iyo maalintii ciidda wax ka badan aad haystid. waa 2 kiilo iyo bar ayaan dhahnay. raashinka raashinku fiican, bariis bololay, istoorka kaaga bololay, cid kaa qaadan waysay, dixiri ku baashaalay, laba bujiyey, asha umalanaysid baashi shandarwada oo kale, kaas ha bixinin. raashinka fiican bixi. ilahi subحana wataعala wuxuu aayad qur'aan ku dhahay, walaa tayamamu الkhabiiثa minhu tunfiquun walastum biaakhidih. war sadaqadiina ha ka qasdinina sadaqada xun. adigaba haddii lagu siin lahaa sadaqadaas xun ma yeeli lahayn, waad caroon lahayd, inaha dhamuujin lahayd caro darteeda, adigo ma yeeli lahayd. idan dadka masaakiinta ha siinin. idan ayuha alaxiba, zakaat alfitr dadka qaar way wahsadaan. waa muhiim zakaat alfitr in la bixiyo. waktiga waajibka zakaat alfitr waa habeenka ciidda, maalintii qoraxda dhacda maalintii ramadaan ugu dambeeya, qoraxda dhacdo habeenkii ciidda la sheega, markaas ayay waajib noqonaysaa zakaat alfitr. waktiga la bixin karana waxay tahay maalinta ciidda bacd alfajr ayuu nabiga bixin jiray markuu dukado, intaan salaada ciidda la dukanin. laakiin cabdullahi bin cumar waxaa ka sugnaaday sida bukhaari ku sugan inuu dhahay, waxaan bixin jirnay waktigii saxaaba cumar alkhataab zakaat alfitr ramadaan oo ka dhiman 2 casho. idan 1 casho ama 2 casho ramadaan ka dhiman in la bixiyo dhib ma leh. asxaabu nabiy ayaa bixiyey salى allahu alayhi wasalam waridwaan اllahi calayhim. ayuha alaxiba, hadduu qofka xijaabto ma habeenka ciidda oo qoraxda ay dhicin, qoraxda ma ay dhicin, ayuu xijaabtay, zakaat alfitr lagama rabo. maxaa dhacay? waktigii waajibka ahayd ma uu gaarin. laakiin hadduu qofka markii qoraxda dhacdo kadib salaada bishii ciiddana la arkay, ciidda soonfur dhinto, markay yani qoraxda dhacdo kadib uu dhinto, waa laga rabaa, waa laga bixinaya zakaat alfitr, sababta waktigii oo waajibka ahayd ayuu
gaaray. ayuha alaxiba waxaa ku xiga waxay tahay salaada alciidda in lagu hasado ma ahan, waa waajib sunna mu-akada ayay u dhowdahay. qofkii ka taga waxaa way dembi ayuu mutaysanayaa, qofkii dukadana ajir badan ayuu helayaa. axaadiista culamada soo qaataan waxaa ka mid ah tusaa salaat alciid inay muhiim tahay. nabiga alay slam Ummu Catiya wuxuu ku dhahay, wuxuu ku amray inay soo saarto dumarka caadada qaba iyo gabdhaha yaryar. gabdhaha yar ama gashaan sida anaga u naqaano reer koonfur guryaha kama baxaan, banaanka uma soo baxaan. carabta waxaa la dhahaa alcadraa'u fi khidriha, guri yar ay leedahay, gurigu dhexyaala ay ku yita dadka may arkaan. waxay gabdha aada xushood badan. soomaalidana waa qabi jirnay. gabdhaha maanta jira maana akhir zamaanka ayadaaba indhaha faraha kaa gelinaysaa. kuwa yar markii la dhaho aabbo ninaa kusoo tuugay ka waram, qosli wa iska carari. kuwaan waxay leedahay aabbo ninka anaaba lasoo sheekaystay igu meheri ciyow baasha bobsi aan kala baxnay. mina xishoodkii ayaa yaraaday. ayuha alaxiba Ummu Catiya nabigu wuxuu ku dhahay sala allahu alay wasalam, wuxuu ku amray dumarka xaydka iyo dawaat alkhuduur inay soo bixisa. markaas wuxuu ku dhahay dumarka dhiigga qaba salaada qof dhiigga qabta salaad ma dukanayso, qof caadada qabta salaad ma dukanayso. wuxuu ku dhahay dumarka caadada qaba salaada ma dukanayaan, muslimiinta iyo khayrkii ayay ka qayb galayaan. minaha waa la amray naagta caadada qabta aan salaad ku waajibin sida la og yahay. nebigu wuxuu amray in la soo saaro ay musallaha ciidda yimaadaan, ay dukadaan. minaha ay dukadaan ma ahe ay xaadiraan khayrka iyo wanaagga meesha ka jiro. falidalika culimadu waxay dhaheen haddii ahaan lahayd sunno caadi ee nebiga dumarkaas ma lugoyn lahayn, maba dukanaya muxuu soo lugoyey. taasi culamada ugu soo qaadanaya imaam shaafici wagayro inay sunna mu-akada tahay. ha lagu dadaalo ayuha alaxiba sadaqada taan hore u sheegay nabig alay slam deeqsi ayuu ahaa. ramadaankana aad ayuu deeqsi u ahaa, tobanka ugu dambeysana ayuu ugu deeqsi badnaa sala allahu alayhi wasalam. sadaqada waa wax adiga aada horumarsanaysid ilahi ugu dhawaanaysa subxaanahu watacaala. ilahi wuxuu dhahay yaabay qofka allah subxana watacaala amaahinay amaah wanaagsan. man da ladii yuqrid allaha qardan xasana, yaaba midki ilaahay amaahinaya amaah wanaagsan, ilahay fayudaacifahu lah walahu ajrun kariim. ilaahayna wuu u labalaabayaa subxaanahu wa tacaala. ilaahayna wuxuu sheegay dadka ilaahay xoolaha siiyey, xoolahooda waxaa xaq ku leh lisaa'ili walmaxruum, sida suurat almacaarij ilahay uu ku sheegay subxana watacaala. qofka wax dawarsanaya miskiinka iyo kan aan wax dawarsanayna xishoonay gurigiisa ugu tagay garaacay siinay, kuwaas ilaahay wuu ammaanay subxana watacaala ayaa xoolahooda wax ku leh. ilaahayna wuxuu dhahay wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin, war samafal dadka wanaajiya, ilaahay wuu jecel yahay kuwa wanaagga sameeya. waxaa muhiim ee maanta dadka inaan wanaajino, sadaqada aan siino. war waxa adiga baxsatid adiga kaaga hormaraysaa. meeqaa dad aan naqaano ayuha alaxiba ramadaankii horey ku tashanay ama shacbaantii ku tashanay ramadaankii inay soomaan, laakiin malakalmood micnaha ay dhinteen. ilahay uu afso subxana wataala. waqtiaan dhimanana ma naqaano. sadaqadana waa waxa ugu fiican qofka uu ilaahay tacaala gaashaan uga dhigaayo naarta. xadiis saxiixa subana sal slam wuxuu dhahay ittaqu nnaara walow bishiqi tamra, war naarta ka gabaad ka dhigta walow aada baxsataan timir jeexeeda. timir jeexeeda maxay tahay? micnaha waa cala alaqal hadda wax aad bixiso aa haysanin walow timir jeexeeda baxso ayuu leeyahay subanaha sala allahu alayhi wasalam. xadiis kale nabigu wuxuu dhahy sal slam maalinta qiyaama qofka mu'minka wuxuu harsanayaa sadaqadiisa. maalin aan har jirin, harka maalin aan har jirin sadaqadaada ayaad harsanaysaa. aydan ibni aadamkan waan naqaanaa bahashii adduunya ahe lacagta waan jecelnahay, waa wax ilahay nagu abuuray. ilahi wuxuu dhahay watuxibuuna almaala xuban jama, war dad yaho waa jeceshihiin maalka xuban jaman badan ayaad aada u jeceshihiin. walidalika cunuga yar maanta la dhala fiiri oo xataa hal jirka lacag aan kala garanayn, lacag noot sii iyo xaanshi, xaanshida ma qabana noota dhakab ayuu leeyahy gacanta dhab kusinaya. waa majbuul ilahay ku abuuray tacaala qofka inuu maalka jeclaada. laakiin bahasha yaynala tarax tegin, yaynala sanbareerexanin bahasha. adduunyada waa laga tagayaa. nebiga alay slam xadiis saxiix wuxuu ku dhahay ibni aadam hadduu leeyahay laba tog waadiyaani min maal oo xoolo ka buuxa, dahab iyo xoolo ka buuxa, toga weyn biyaha mara haddii ilaahay siiyo
wuxuu leeyahy ilaahay mid saddexaad isii kuma qanacay nebiga wuxuu dhahay walaa yamla'u jawfa bni aadam ila turaab bini aadam calooshiisa waxaa buuxin karaa keliya ciid ah xadiis kale waxaa jira ishiisa waxaa buuxin karaa ciid waa markuu dhinto waay idan sadaqada in la baxsado aad bay u fiican tahay nabiga xadiis kale wuxuu ku dhahy sal slam yakburu bni aadam wa yakbur macahu ithnaan ibni aadam markuu sii gaboobay ama si da sii noqonay laba shayna waa lasii weynaanayaan waa lasii gaboobayaan maxay tahay laba shay xub lmaal wa tuul lcumr jecel maal iyo inuu noolaado waxaa arkay 90 jir khalaas wax u dhama mala ilkii ka daatay wuxuu ku leeyahay ii duceey ilaah cumr dheer isiyo okay cumr dheer ma diidin lakin waxaan ka wadaa weli wuxuu rabaa inuu sii noolaado boqol qof ku jira wuxuu leeyahay wuxuu rabaa inuu sii noolaado ibni aadanka markuu da' sii gaaro laba shay agtiisa waa ka weynaanayaan aad u jeclaanaya xoolo iyo inuu joogo adduunka u nool micnaha u dhimanin soomaalidu waxay dhahaan 60 jir iyo 6 jeclo xadiiskan ayuu waafaqayaa waagii waxaan xasuustaa hadda ka hor meel waxaan ka akhriyey waxaa le haddaad da' gelaysid waxaa ku ogaanaysaa waagii hore markaad da'da ahayd ilmaha markay meel aadaan dan kuguma laho meel aadaan safray aadaan laba casho meel aadaan laakiin markaad da' gashid waa wixii ma gaarteen meeshii welwel aa kugu jira waa da' wey wekiyo talaan wuxuu dhahay wekiyo ayaa ilbaabka ku garaacaysaa da'dii ayaa kusoo galaysaa welwel ayaa ku galaya waagi horena shaqadaada ma ahan labo habeenkana waa soo kici nalkii aad daminaysaa nalkaa ku dheelina waagi horena shaqa kuma lahan rashig maxaa u daadisan lacagtaa ku dheelina maxaasaa ugu yeesheen waa fiican tahay in maal kale yaala waxaan ka wadaa waxaa hoodii soo garaacaysaa waxaa way da' qaar waxaa la dhahay da'da waxaa lagu gartaa deemishii hore yeelaa dadka uu kula hadhan ayuu ku noqonaya wixii u dabagalaya lidalik waxaan ka wadaa dee adduunkan waa laga tegayaa xadiiska aan sheegana bukhari muslim ayaa wariyay nabig ala slam xadiis wuxuu ku dhahay ummad kasta waxaa leedahay fidno reer bani israa'iil waxaa lagu fidneeyey dibi soo maan dibi ayuu ilahay ku imtixaanay tu ilaahay dhahay jaceelkii dibiga ayay cabbeen washribuu fi quluubihim alcijla soomeen aayadii jaceelkii ayay jeclaan annaga soomaali dadkao dhan horta badan ama adduunka jooga waxay laqeen jaceelkii caashiqii lacag lakin annaga soomaali mid kale ayaa noo wehelisaa qabiil ilaa man raxima rabbi hadda qabiilkii waaba isbedelabo shaati kale u xirtay arshaydaan xoog badnaa ilahi taala wuxuu dhahay walaa tatabicuu khuطuwaat shaytaan war kaartooyinka shaydaanka raacina kaarta hal kaarta ma laho kaarta tan hadduu kaa waayo tanu kugu imaanaya xataa anaga wadaadada wana soo galaya mararka qaar dhinaca diintu naga soo galaya diinta hala ilaaliyo manhaj salaf hala raaco markaasaan ummaddii gamta ku haynaa biismi diin ayaan diintii la dagaalamaynaa shaydaan meesha naga soo gala way waxaa arkaysa nin caalim ah culamo kale haysto qalad kale kuma haysti ase wax nagama dhexeeyaan arrin diinan ku haysta waa been shaksiga ka dhexeysa diintan wuxuu ka dhiganaya gabaad war haddii qofku waxa ku haysid caalim yahay ma uu tagtid gooni oo la fariisnid maxaa social media kusoo fariisiiyey shaydaanka wuxuu leeyahay kaarta fara badan oo nala dagaalamayo waa nin shaqo aan qabin dukaano uma foofo xoolana uma foofaan anigu noo soo fofa maalin kasto falidalikum qabyaaladii hadda shaatiya noo soo hartay goboleeda noo soo hartay shaati waxaan arkay niman aan ku arkay social media isku feeray meel maalin rashin lagu cunay ingiriisi ma naqaan jubba hebel iyo jubba hebel bismi illaahi raxmaan waa qabiilkii laakiin noola soo nimankaane oo gaaladeena waxaan way ka shaqeeyaan sida anaga caqliga nolga waxaa arkay ninku dhahay war anaga soodintaani waa inti idinka waxaan reer hebel idinka reer galas allah anaga reer dabgaalana war reer dabgaal reer galas awal maxay ahaayeen fa soomaali sooma ahan soomaali maxamed salama dhijin oo maxamedkii goormaa turteen hadda wixii waa isbedel hadda niman siyaasiyiin ah anaga siyaasada shaq kuma lakin waxaan ka wadaa waxaa na soo xortay shaar qabiil oo lakin aad dareemeynin hadda ka hor nin culamo ka hadlay waxaan arkay xamar jooga magaciis baa igu dhima sheekaas wuxuu dhahay nimanka siyaasiyiinta markay rabaan doorasho qabiilku imana wuu ku orkacsanaya aniga saan reer hebel maarta reer hebel si ana yeeleen war reer hebel goormaan ka tagnay war reer hebel maxaan ka dheefnay war reer hebel maanta meeshaan taalna maanta qiimihii sharaftii naga tagay reer hebel soo maahan reer hebel waay
فلذلكم وعيب قفك من آدمك إنه كم مشغولة قبيل. النبي عليه السلام وحوده ودعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة. وقرن وحس كتر ما أنت قرن أنا فرح قشنا أنا وحام سنة سومالي توما سنة سان أهين 20 سنة منهن هذا dadkii hurdo waa laakiin qaar ay bahasha ku dambaysaa laakiin wixii iido kaasi dhamaanayso nin siyaasi adeerkaada ku imaanaya meel ka kicinaya meel xun waa yaqaan ma dadka laga taabto xaalkii adoo oo qabiilkaasi dhamaanaya hal mar fuul noqday viruskii waa ziyaadebo ma meel ka taabana reebel maartay xirban san inay yeelan reebel maartay had goor tasan yeelan adeerkaada yaa dilay ana adeerkaada yaa dilay war geelayaan yaa dhacay war wixii hore waa tagay maxaad u soo faagaysaa معناها أننا نوارك عسنين ضد نصيحة عن سنة وحيتاي وري هبل إسكداي إلهي سبحانه وتعالى وحوي زنا متك أمدا أوفي عن دينتا إدتك إدلك إلهي أمدا أنا أوكيرا أنت كنت دعاء إلهي طبعا كان قدام أيامها دمن كنت دعاء شيء أنتس هبل وإحنا مقابناي ما أنت تنزانان كأجل أسعد الحقة نقص تنزانان كمدة وحكوار كأدين سومالي تاهي لان دير أهم أما لان قاب أهم وهذه مش يغانا سومالي هو يغانا هذا ما سوق قادسة يمن وتا مشتال فيريا وقبيل ماشي دقي وهير دكورة أركي نيجو من شركة شقينا نسقاشي لبدي يمن جوجا نيجو ويل المولدين نيجو حاوتقني وشركة شقينا بترول كقدة قرحت أدي كل إلى كونتن إشانه مالن كون إنه حارنا قضي كمان حرنين لركيز نص خوه وحلاقي بينه لبسنا قبيسن إلا ويا إلى 13 جرة جيل لجرا حولنا جيل عانا نولس حول دي من لسه هرتياتين إيشيغا هبل مركي قابل كوكسو ونعم وليه ها ضد في عن واي لو يلو حنو جري قابيل كلا ترى حول انتي وين سنة عانا لو متقام سنة عانا أنا يا معاني أذكر أن سوق يا لفير كمال آن واي قرحنا نتاجنيا نبكنا كم وضع قابيل كيا قلفا عبيتانك إيه عبين إلهي كوصل لدي رد بني إسرائيل إني عبودان دبيكي أنا دبي قبيلة يا إله نوصل لدي وحوده ما من سنة وحنا هدا أنا نما كان سيرنا ولا لهني أنا وحنا ما قل معبر وكتغني أنا عبني ممكن أنا ولا لهني معقول معن هركاسي قارتي قبيلة ضد كمانتا ميشا أنجونا إخوان وسوق قبل إن شاء الله أسئلة أيان ويا وقتي وحنكون سوق قبل إن شاء الله حارانتنا كفوقانو نبي عليه السلام وحوده هاي قف كستو وربضة بتصدا مالنت القيامة مال كيسة بركة إلهي كقاضايا إلهي وتوعد القرآن كله يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلهي بركة وكقاضايا دكون داكن أيو كديغايا بربضة صدقاتنا إلهي وبركة حديث النبي وحكسونا وحوده هاي صدقات ير إلهي وكوب بربارنا يا سيد أحد كينا وحرت ير وبرباري اللي كويناته جمل أو كلا نقطه لكن ربا إله تعالى وبركته وكقاضي قفك الربا قال هإزجاره هكبحه وحكذا واحد عند عبد الإله كوب لنقاضي سبحانه وتعالى دار السلام ضد كجوجا سومالي ذا ضد في عن واي لكن وحنا جمع قان وحرده اسكو حركة اسكو حرنانو نمك هاس لا خرسي ما أنت أفريقيا نوسمي نقصد حافظ اسكعنا أفر كحكمة وحياتها سومالي ذا يسوء مهذان أنت أنا وحوينه رسكو سلامه محاضرة لديجيستو وعدي خيرك لديجيستو أي أولاد جيدان إله تعالى أيقنا هبرك أيها الأحبة نبي عليه السلام حديث وحده هاي قف كستو دعوة جاهلية دتك أغيره قبيل أغيره جهنم أيا لغتورة جلب أيوغد عيا جهنم إنا وحقود رسولك الله وإن صلى وإن صام حدور بنيك هدو يعني أدو دكذا أدو صام هدو يعني نكان قبيلة كما حدي نبي عليه السلام وحده هاي وإن صلى وإن صام هدور بهس دكذا نين أهل الصلاة هذا نين أهل الصوم هذا هدو قبيل الجاهلية كسوغنياي جلب أف جنبي أي لوجو تورايا جلب أي لوجو تورايا جهنم والعياذ بالله أيها الأحبة أتبع إن كما تعلنا يا وحنفرنا مجال الأسئلة وجزاكم الله خيرا صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.